weli waxaan ku dhex jirnaa waa exponentiga with the same base-ka oo base-keedu uu isku mid ka yahay. base-ku waa numberkan labada haddii aad hilmaansan tahay si aan ku xasuusiyo. 7 waa base-ka, 6 3 waa power-ka ama exponentiga, 4 iyo 3 weli waa power-ka ama exponentiga. okay, waxaan soo aragnay ku dar iyo ka jar ayaga oo wax dhib aan lahayn laakiin caadi looga shaqeynayo. ku dhufasho oo ka duwan kuwaas waa soo aragnay. maantana waxaan fiirinaynaa haddii ilaahay yiraahdo u qaybida. okay, ku dhufashadu waxay ahayd waxaa la isku dareeyay power-ka kore. ku dhufashadu waxay qaadatay in la isku daro. maxaad u malaynaysaa inay qaadan karto u qaybido maadaama ay ku dhufashadii iyo ka jar ku dartay isla shaqeeyeen? u qaybi iyo ka jarna oo isla shaqeynayaan. sidii isku dhufashada la isugu dariyay power-keeda kore waa la isugu dari doonaa, waa loo kala jari doonaa labadana. okay, aan tusaale ahaan u sameyno marka. base-ku waa isku mid. base-ka waa 2, labada sideeda ayaan usoo qaadanaynaa 2. okay, kan muxuu ahaa? power-keedu waa 6. 6da ayaa soo qaadanaysaa. maadaama calaamadaanu tahay hadeertaan u qaybi, waxaan qaadanaynaa ka jar. base-ku waa isku mid oo ma baahni. waxaan u baahanahay power-kaas oo ah 3. okay, base-kayga mar walba waan soo qaadanayaa. base-kaygu waa base-ka ah 2. wax aan ka shaqeeya halkan oo ma baahni oo ama haysto sidii inaan soo qaato, laakiin kuwaan u baahnay inaan u shaqeeyo calaamadda u dhexayso waa 6 iyo 3. 6 marka laga jaro 3 waxay noqonaysaa 3. xisaabtaas saasay noqotay. okay, iyadoo si kale ah haddana aan sameyno. waxaa dhici karta u qaybisaan way ku timaadaa. waxaa dhici karta inay ku timaado iyadoo ah 2 6 2 3 oo ah as a fraction. waxaa laga yaabaa iyadoo saas ah as a fraction inay ku timaado. okay, wax dhiba ma lahan. waxaad sameyn kartaa, waxaad qoran kartaa kaagaas kore baad marka hore qoranaysaa 2 power-keedu yahay 6 3 waanu ka jaraynaa 3 waa sidii tii kore oo kale. hadhowna caadi waad sameyn kartaa. waxaad sameyn kartaa oo iyadana aad u fahmi kartaa. okay, tanaan dhamayno. waxaad iyana sameyn kartaa oo qaab kale ah. waxaan dhihi karnaa waxaan dhihi karnaa labo lagu dhuftay 2 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 1 2 3 4 5 6 oo ah power-kaas kore oo loo qaybiyey intaas oo dhan. kan oo ah 2 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 2. okay, haddaba saa markay tahay wax saa usii adag maaha. waa iyadii aan sii ballaarnay kala saarnay aan macnihi rabno inaan cadeyno qaabka ay macnihi u soconayso. okay, number kasta oo kan ka mida markaan cancel garaynayna waa inaan u cancel garaynaa mid ka mid a kuwan. wixii soo harana aan u qornaa sidii power-kii. okay, 2 cancel garaynay halkan, 2 inaan cancel garayno wey. 2 kale aan cancel garaynay, 2 kale aan u cancel garaynaynaa iyadana. 2 aan cancel garaynay, 2 kale ayaan cancel garaynaynaa. sidaa darteed hoos waan dhameynay. wax dambe oo wax u cancel garayn karna ma harin. waxaa noo soo haray kor. maadaama ay kor noo soo hartay
waxay intaanu tahay waa labo lagu dhuftay labo lagu dhuftay labo. That means waxay tahay waa labo wax isku wada dhacaya. Intee jeer bay isku dhacaysaa? 3 jeer oo ah 1 iyo 2 iyo 3. Powerku wuxuu noqonayaa 3. saasuna waa qaab kale oo loo sameeyo haddii ay ku wareertiin saa loo kala jaro halkaas. laakiin anigu waxaan ku waalin lahaa inaad base-kaaga soo qorto, powerkeedana la qorto, calaamadana ka jar, aad u bedesho adigoo halkaa dhiganaya ka jar. kadan labadana uma baahnid, powerka kore unbaa la kala jaraya. base-ka sidiisa waxba ma bedelayo, sidiisu ahaanaya. waxa la kala jaraya waa labadaas kore. so marka kan qoro laga jaray kaa kore, sidaas halkaa ku caddahay. darteed wax oo kusii dhiba ama aad ku wareerto ma yeelan meeshaan. okay, haddaba kan ayaan uga shaqeynaa sida tan oo dhaqsaha ah. waxaan nidhi intaan hore sideeda usoo qoro. base-ku waa maxay? waa 7. powerkeenu waa maxay? waa 4. maxaa haysanaa halkan? waa u qaybi, maxay noqonaysaa? ka jar. base-ku waa 7, waa haystaa 7, uma baahni. kaas kore ayaan u baahnaa oo ah 3. waxay noqonaysaa base-ka sidiisa igu soo qaado 7. 4 marka laga jaro 3 waxaa kuu soo hara 1. intaan adiga ayaa ka shaqeyn kara tusaalayaasha hore haddii hadda xasuusan dib inaa ugu laabata weeye. waxaan kaloo samayn karnaa marka ay u qoran tahay sidii hadda aan ku tusayay oo ka horeysa qaabka hore oo ah sida fractionka ah. 7 powerkeedu yahay 4 loo qaybiyey 7 powerkeedu 3 yahay. wax dhiba ma lahan. waxay la mid tahay kale 7 powerkeedu yahay 4 oo laga jaray 3. kan ayaa kor geynaysaa ood ka jaraysaa halkaas ayaad kaga jaraysaa. waxay noqonaysaa 7 powerkeedu yahay 1.